بسم الله الرحمن الرحيم. halkan doonaya inaan fariin yar aan uga diro maamulka Somaliland dowladda Somaliland khaasatan madaxdeeda ugu sareysa iyo gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali. waxaan halkan doonaya inaan kaga hadlo aan ku salaamayaa soo dhawow iyo Maxamed Tayyib iyo dhamaantiin soo dhawaada الله شارك رأيه إن شاء الله زي وقعدوا ولي وخاصة شعب كريس Somaliland وحرجينا يعني هذا فافيان سي بريت ولا حفيز كيس وقول حتكتب waxaan halkan aan rabaa inaan kaga hadlo muddo laga joogo 24 sano guri magaalada Hargeysa ku yaala oo anagu aan leenahay oo ilmaadan waa inay leeyihiin oo xaq darro iyo dulmi lagu haysto oo qabyaalad lagu haysto inaan halkan aan maaragtay aan baaq uga diro gudoomiyaha maxkamadda sare iyo maamulkaba waayo wax waliba waxay leeyihiin waqti way leeyihiin wax walibana waxay leeyihiin time and enough is enough. gurigan waa guri ku yaala xaafadda Jijgeer Jijgeerna waa la garanayaa waqtigii dalku Soomaaliya ahayd sidii loo kala deganaa iyo dadku sida ay u kala deganaayeen qaxay state waa laga qaxay guriga waxaa lagu kala baxay state barbarkii Soomaaliya markuu dhacay iyo waliba khaasatan gobolada waqooyi baa guriga laga baxay intii ka dambeysana muddo 24 sano waxa haystay nin magaciisa la yiraahdo Maxamed Cumar Faarax Carablow oo ka soo jeeda Suweerawal oo Ciise Muuse oo Reesaale waxayna ilmaadeer yihiin ninka gudoomiyaha maxkamadda sare haysta Aadan Xaaji Cali 2011 aniga ka tagay Sweden Hargeysa tagay oo guriga dacwadiisa bilaabay waxaan ka bilaabay gudoomiyaha maxkamadda Hargeysa degmada oo waqtigaas uu xukumayay ninka la oranayay la haday ina beergel aadan waa dad la garanayo oo Hargeysawiya oo 1960 deganaa ku dhashay ku koray wax ku bartay soo manafacsaday bay ahayd burburkii Soomaaliya markii lagu kala baxay dadku ay kala irdhooween qurbaha la soo galay dib looguma noqon hooyo ayaa ku noqotay 1997 halkaas oo ninkaasi ugu hanjabay maxkamad degmo iyo tu gobol iyo tu racfaan iyo tii sare oo hadda xaaladdu ay ku jirto intaasoo marxaladood ay martay intaasoo marxaladoodna xukunkii waa loo riday mushkiladdu hadaba sarto meesha ka qodsantahay waxa weeye waa qowda maqashii waxna oo qaban guriga markii la xukumo waxa waajib ah in la raaciyo fulintu ma raacdo laguma daro fulin ninka racfaan buu qaataa daba ka wareeg iyo ambiil iyo black jinni adigu 12 sano 9 sano hadda aan u jeedaa 9 sano ayaa daarintaas socotaa waqtigan waa naga soo dhamaaday gudoomiyaha maxkamadda sare oo hadda gacanta ku haya guriga iyo lahaanshaha oo qiraya gurigan inaan anagu leenahay qaray inaan leenahay go'aankiisii ugu dambeeyay ee maxkamadda uu ka soo saaray waxay ahayd in gurigaasi anagu aanu leenahay ninkanna uusan guriga lahayn in guriga ninkan 24 sano deganaa in uu la siiyo lacagta qiimaha gurigu hadda uu joogo oo taasoo micnaheedu ka dhigan tahay inaan anagu iminka gurigii aan lahayn aan dib u iibsano arintaas oo waxa xaajo ugu ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo sharciga iyo islaamka iyo Soomaalnimada ku ah wax la aqbali karayaan aan ahayn in gurigeyga aan dib u iibsano oo waliba aan ku iibsano lacagta uu iminka joogo ayadoo gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo gobolka iyo racfaanka iyo isaga laftirkiisu Aadan Xaaji Cali oo gudoomiyaha maxkamadda sare ay intuba qirayaan marka waxaan leenahay
muddo hadda laga joogo 4 bilood ilaa 5 bilood laga joogo ayaa waxa uu keenay in la yiraahdo wax ka fiirsasho la yiraahdo oo arrinkaas annagu aanu ku dhintay waxaan aqbalayna ma aha inaan gurigeyga dib u iibsano oo ninkeygii 24 sano ku jiray ee laga rabay ee maxkamadihii hore oo dhan ay ku xukumeen inuu kirada bixiyo 24 sano ee guriga uu deganaa kiradiisa inuu bixiyo in lawyerkii 9 sano aanu ku jirnay lacagtii iyo kharashkii isaga lagu dalaco waxaasoo dhan halkaanu ka filanay iyo fulinteedii in ninka guriga laga saaro inuu maanta yiraahdo guriga dib u iibsada wax la aqbalayo ma aha Soomaalina runtii way istaqaanaa waxna lama kala haysan karayo qabiil wax ka haysan karaya ma jiro ama maamul wax ka haysan karaya ma jiro waxaan u sheegayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali oo beritoole balantiisu ay tahay in gurigii mar labaad dacwadiisii hadana dib loo furo inuu guriga sidii sharcigu ahaa ee maxkamadihii ka horeeyay ay fuliyeen ama ay ku dhawaaqeen inuu sameeyo inuu cadaalad raaco inuu fuliyo amaradii uu isagu waqrayo gurigan lahaanshiisa inay leeyihiin ilmaadan waayeen haddii taa wax ka duwan ay meeshaasi ka dhacaan oo guriga ninku dhinac uu dumiyay oo qayb uu gurigii dumiyay markuu ogaaday in maxkamadii oo dhan ay isku raaceen inaan anagu leenahay guriga wuxuu ugu talagalay xataa inuu baabiiyo cagacagfu soo qaatay isagoo markaa doonaya inuu yiraahdo meeshu jago weeyba oo waxaan la isku haystaaba guriga ma aha waa jago arrintii waa laga dacwooday booliska loogu yeeray waa la joojiyay gurigii waa la xanibay gurigii sidii u xaniban oo ilaa hadda banaanka uu ka yahay isagii oo uusan laakiin uuna deganeyn oo gurigii dushii ka baabaasan yahay in gudoomiyaha maxkamadda sare uu kula meereysto ninka haysta waa nin Ciise Muuse isagu waa nin Ciise Muuse ninka guriga haysta waa nin Raawacaysa isaguna waa Raawacays in uu Aadan Xaaji Cali guriga si ay lahaanshaha dhulka iyo gurigaba ay u yeeshaan ninka ilmaadeerka yihiin inuu cadaalad darro guriga ugu xukumo inuu cadaalad darro yiraahdo gurigeyga iyo anaga dib u iibsada wax laga aqbalayo ma naamtu billaahi saddex magac waa ku dhaartay wax la aqbalayo ma waana mid cawaaqib xumo reebaysa in wax badan oo laga bogsooday oo ummadda Soomaaliyeed ay ka soo kabanaysa iminka in dib loogu noqdo waxaa faraya maamulka Somaliland iyo madaxda Somaliland way garanayaan ilma aadan waayeel saqiir ila kabiir way wada garanayaan asal Hargeysa guriga waa la garanayaa maxkamadda maalintii anigu dacwadan aan bilaabanay maxkamadda oo dhan way qaraysaa iyo dadka ka shaqeeya dadka xeerlaaliyaha oo dhan guriga cid iska leh laakiin haddana waxa weeye fulinteedii baa laakiin aan marnaba hirgelin waxaan soo jeedinayaa marka waxaan soo jeedinayaa beritoole subaxii baa ballanta lagu leeyahay maxkamadda Hargeysa waxaan soo jeedinayaa gudoomiyaha Aadan Xaaji Cali wixii hore dhacay way dhaceen inaad guriga ku soo celiso gacantii lahayd iyo dadkii lahaa iyo gacantii aaminka ahayd hadday se dhici weydo waxaa iman doona wax ka xun oo cawaaqib xumo Soomaali meel walba wada degan tahay meel walba ganacsi iyo guryo iyo dhaqaale iyo xidid iyo xigaalba ku tahay waxaa kale oo la hadlayaa Sultan Xasan baa la hadlayaa sultaanka Suweerawal Sultan Xasan walaalkay Axmed Aadan Waayeel saaxiib baad haydeen waad soo wada karteen maanta beel dhan baad sultaan u tahay waxa lagaaga fadhiyaa maalintii anagu aan jijiga isku aragnay aan ku kulanay jijiga Sultan Xasanow waxaad qirtay inaad hawsha wax ka qabanayso suldaankii Suweerawal baa tahay ninka maxkamadda fadhiya waa Suweerawal ninka guriga haystana waa Suweerawal arrintaa inaad wax ka qabato arrintaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku soo celiso oo ku sidii dhaqanku ahaa jiray hawsha aad ku gashaan ka rajeenaynaa maamulka Somaliland waxaan u sheegayaa madaxdeeda cidda aad cadaalad u dhiibanaysaan ka fiirsada waayo dulmi badan iyo dhibaato badan baa meesha ka jirta dhibaatada iyo dulmigaasina wuxuu ku soo noqonayaa maamulka uu ku soo noqonayaa inta horta la shargareeya barnaamijka horta waa markii ugu horeysay live soo galo nolosheeda aniga waxaana live soo galiyay waad garan kartaan may way joogaan mustaaqay way joogaan dadku anagu 24 sanaba waxaan ku xidaarsanay qof aan dhibaato geysan in dhibaato loo geysto hanti aan cidii ahayn in loo dhaco
xoolahan xoolay ahayn in loo qaato intaa waanu ka xidaaleysananay laakiin waqtigu iyo sabarku iyo wax waliba waxay leeyihiin limited iyo waqti bay leeyihiin hadda waxaanu joognaa runtii waqtigii arrintan ayna soo kartay Mustafa Awliyo soo dhawaabtay aad baan ku salaamayaa Mustafa Awliyo waa nin ana tuu qumanahay wareer geysa wuu garanayaa guriga indhihiisu ku soo arkay guriga habeen baan aniga isagoo wada tagnay gurigani cid allaaliyo cid asal Hargeysa iyo dadka reer Hargeysa oo dhan way wada garanayaan waxaan garanayay marka sababta intaasoo sano munaafaqada iyo dawaka wareega ay maxkamaddu u sameynayso haddii arrintaasi sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan ay lagu fuli weydo waxaan rajeynayaa cawaaqib xumadeeda waxa qaadi doona gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali baa qaadaya halkan aan ka sheegaya waan ku celinayaa cawaaqib xumada ka dhalata waxa qaadaya gudoomiyaha Aadan Xaaji Cali umadu waa qabaayil umadu waa ehel iyo xigaal umadu dalka way wada degtaa meel walba ganacsi anti waa lagu wada leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan gurigaas lagu soo wareejiyo cid allaaliyo cidii xaq u lahayd inuu wada ognahay oo maxkamadii ka horeeyay oo dhan ay wada xukumeen adiguna aad qirayso waxaad u haysataa anigu ma garanayo marka aad baan idin salaamayaa dhamaantiinba inta daawatay iyo inta ku jirta iyo inta share garaysayba waad ku mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته